بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. isku soo noqod wanaagsan waxaan hore usoo sameynay formkaas oo aan ku tilmaamnay HR form template. formkan template wuxuu ku wanaagsan yahay dhowr xabo kala duwan furan kartaa oo isku magaca laakiin mid walba u fiirso template 1 template 2 ama mid kala tago aan furo wuxuu noqon doonaa template 3 sidaas horta uga fiican yahay marka template ugu save gareystid dad badan la share gareyn kartaa oo aad dhigi kartaa formkan soo buuxiya kadibna ay soo buuxin karaan kadibna daatada isku geegin kartaa. laakiin casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay foomamka kamid ah oo la soo buuxiyay dib ugu soo noqday waxa rabtaa laakiin qofka inaad ka hubiso ama dadka soo buuxiyay daatada ay meesha ku jirto data sax inay tahay ma duplicates data ku jira si ay u ogaan kartaa inay datadan duplicate tahay xagee laga fiiriyaa waxyaalaha duplicate ka ah. aad bay wax muhiim u tahay inaad data quality check sameysid oo aad la socoto datadan. mid kale oo validationska qofka copy paste haduu isticmaalo uu dhinac mari karaa marka laga reebo inaa protect gareyso sheetskaaga oo qofka wax badan ka bedeli karin aanan ahayn inuu doorto maahane. okay hadda waxaan haynaa form hore u sameynay oo laakiin markaan data ay ku jirto muhiimada waxa waaye datadan in aan dhowr meelba wax ka fiirino. midka koowaad see datadan uga dhex eegaa in ay ku jirto data isku mid ah ama duplicate ah. qof saddexdiisa magac dhameystiran yihiin oo laba mar ama saddex mar soo noqday isku da ah grade ah isku position ah ma dhici kartaa maya. Soomaalidu isku magacay kaan karaan marka waxa ugu horeeya sameynayso horta waxa waaye waxaan isticmaali doonaa conditional formatting waxa la marka hore marka dambana table aan isticmaali doonaa excel tables uu leeyahay oo aan ku remove gareynayna xitaa wixii dhan isku wada midka ugu horeysa conditional formatting marka inaad isticmaashid rabtid qaybta aad rabtid inaad conditional format ku isticmaashid nan dooro dhinacaan dooranaya datadayda dhan marka aan doorto waxaan imaanayaa home tabka home markaan imaado kadib waxaan leeyahay conditional formatting waxa uu koray highlight cells kadib meesha ugu hooseysa duplicate values ay imaanayaan soo jeedid marka ugu horeysaba duplicate meeshan ku qoran wixii isku mid ah dhan uu soo qabtay. hadda daasti u fiiris meeshan kuma jiraan laba qof oo saddexdooda magac ay iswada leeyihiin 1 2 3 ma jiro saddexda magac ay iswada leeyihiin laakiin genderka waa dhici kartaa inay female waana sax waana normal dadka age-kina iskaga mid ka noqdaan grade-ka waxaas dhan. labada ugu daran datadeena inay dadka iskaga ekaadaan waxa waaye magaca iyo mobile number lama share gareyn karo laba qof ma wada lahaan karto. magacana haddii 4 magac ama 3 magac oo dhameystiran uu yahay okay magacyada Soomaalidu way lahaan karaan laakiin columnkaas dhan ay magaciisa is wada yeesho. okay hadda si u fiiris datadan intaan uu guduudka ka dhigay buu asaga duplicate u yaqaanaa laakiin adiga ahaan laba qof female ay noqon karaan saddex qof male ay noqon karaan wax weyn ma aha. okay laakiin waxaan daran magacan Faadumo inuu laba mar soo noqdo aan sameyno inuu soo noqdo copy meeshan dan ku basti garay hadda soo maaragt inuu hore ka gaduutay guduud hore ka noqonaya hadda magacan Muuse Qaad meeshan hoos hadda oo ninkan ku bedel asal guduud isku bedelaya. conditional formatting wuxuu fiirsanayaa laba wax oo isku mid ah. okay saddex sidoo kale lambaradeena dhan hadda unique waayo hal mid aan ka bilaabay hoosaan u jiiday kulli wax isku wada mid ma jiraan lambaradana isku wada mid ka dhigayna conditional formatting kan aan ka baxna marka hore halkan imo clear waxa dhahdaa from entire sheet
wixii dhan waa kaa wada baxayaan markaan conditional format mid aan sameyno in lambarkan ugu horeeya saddexdan lambar ay isku wada leeyihiin aan ka wada dhigno intaan dhan hadda 000 laakiin dad kale dhan waa kala duwan yihiin meesha aad rabtidna highlight garayso intaan markaa highlight garaysid conditional formatting imo sidaa hadda sameynay imo duplicate dheh hadda u fiirso waxa uu soo qabto waxaa waaye okay dheh waxa uu soo qabto waxaa waaye lambaradan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 shantan lambar isku wada mid waaye sababta maxaa waaye anaga isku ekeysiin oo hoos soo jijin soo marka conditional formatting marka ugu horeyso wuxuu ka caawinayaa daatada marka gacanta ku dhigtid inaad fiirisid meelaha ayna daatada iskaga ekaan karin inaad kooda hore ka raadisid wax mobile numberka kamid ah identity ama ID card numberka kamid ah waxyaalaha noocaas okay